السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشر كينا مانتا هدي إلهي سبحانه وتعالى إدما وحينو شيقي دونا حكمة كسابسان أقوانتا إيو وحبرشدا هدما انتا اينا نقول قد قلين حكمة دهينا ملكو هوري وحنكا عدسانينا اينا تكسو بيرتا جانل كينا او سارتو سبسكرايب جانل كينا سيدو كان فروتا قنباليلكا سي اي كوسو قاران عشر ركستو وتحانا وانسو قلينا حكمدان aan maanta bilownay waxaan rajaynaynaa inay inoo noqdaan taxane aynu waliba ka shidaal qaadano kuwaas oo maalin kasta aynu soo gelino qaar ka tirsan isla janalkeena aqoonda waad kala socon doontaan. xikmadda koobaad waxa weeye haddii aad wiil wax barto qof ayaad wax bartay, haddaad gabar wax bartana bulsho ayaad wax bartay. xikmaddan waxaa iskale nin la dhaho Cabdixamiid Baadiis. xikmaddan haddii aan micnayno waxa weeyaan hal wiil haddii aad wax barto aqoontaasi waxay u badan tahay 90% in aqoontaasi ay ku ekaato ama ay kali ku noqoto wiilka oo ku maareeyo danihiisa gaarka. halka haddii aad gabar wax bartana ay tahay inaad bulsho wax bartay, waayo gabadhu waxay u badan tahay 99% inay noqoto berri hooyo taas oo soo saaraysa warshad ubadnas taas oo ah warshad soo saaraysa ubad. hooyadu haddii ay soo saarto ubad aad u qurux badan oo akhlaaq ahaan u dhisan, waxaa dhacaysa in dalkaasi uu noqdo dal horumarsan maadaama jiil uu haysto hoos ka dhisan ama basic laga soo dhisay. sidoo kale gabyaagii Carbeed Axmed Shawqi ayaa isaguna yiri hooyadu waa madrasad, haddii ay diyaariso waxa ay diyaarisaa shacab aad u wanaagsan. taas waa xikmadda koobaad. xikmaddeena labaad waxa weeyaan waxbarashadu waa baasaboorka mustaqbalka. waxaa ka aqoonsan xikmaddan aqoonyahankii la oran jiray Malcolm. xikmaddan macnaheedu waxa weeyaan haddii aad haysato baasaboor waxa aad awoodaa inaad ka degto caalamka meesha aad doonto oo aad ka shaqaysato. marka aad rabtid maanta inaad u socdaasho dalka baxsan dalkaaga hooyo, waxa ugu horeeya aad qaadayso waa inaad samaysato baasaboor aad dunida kula xiriirto. sidoo kale haddii aad waxbarasho leedahay ama aad tahay aqoonyahan, waxaad awood u leedahay waddan kastoo aad ka degto inaad ka xamaalato adigoo isticmaalaya aqoontaada. xikmadda saddexaad waxa weeyaan aan maanta qaadan doono haddii ardaygu ku koobnaado casharka dugsiga waxba ma baran. haddii aad arday tahay oo aad ku kooban tahay casharka aad ka qaadato ama 7 ama 8 maade aad ka soo dhigato dugsiga ama jaamacadda waxba maadan baran. macallinku waa tii markii hore laynoo sheegi jiray ilaa xilligii aad wax baranaysay macallinku waxa uu bixiyaa oo kaliya 25% waxbarashada, halka laga rabo 75 inuu raadsado ardaygu. waa falsafad ay in badan u akhriyi jireen macallimiinteena. hase ahaatee hadda waxaad moodaa inay tahay macallinku waxa uu bixinaya inay tahay 5% ama 10. haddaba arday haddii aad tahay ha isku dayin inaad ku koobnaato 7 buug ama 8 buug aad ka qaadanayso dugsiga sare ama jaamacadda. isku day laakiin inaad dhisto aqoontaada adigoo isticmaalaya habka ugu wanaagsan oo ah wax akhris, gaar ahaan adigoo waliba diiradda saaraya cilmiga ama fanniga aad baranayso. xalqa kamid ah xalqooyinkeena ka bixi doona janalkeena aqoon-dhaab ayaynu ku eegi doonaa muhiimadda wax akhriska iyo ummadda Nabi Maxamed meesha ay kaga jirto. xikmadda tan ku xigta waxa weeyaan waxbarashadu waa hubka ugu awooda badan ee ku suuragelinaya inaad caalamka ku bedesho. Nelson Mandela, madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika. xikmaddan waxa weeyaan qofku hadduu leeyahay waxbarasho ama aqoon waxa uu awood u leeyahay inuu bedelo adduunka isagoo isticmaalaya hubkiisa oo ah waxbaridda. Nelson Mandela oo ah aqoonyahanka kelmaddan yiri ahna madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika waxa uu tusaale cad inoogu noqonayaa inuu isagoo isticmaalaya aqoontiisa uu Koonfur Afrika ka dhigay dalalka ugu horumarsan qaaradda Afrika. sidoo kalena Nelson Mandela oo isticmaalaya xikmadda aqoontiisa ayaa waxa uu Koonfur Afrika ku abuuray inay iska daayaan cadaankii markii hore sida xun ula dhaqmi jiray kadib markii ay xorriyadda qaateen. waxbarashadu waa hubka ugu awooda badan ee kuu suuragelinaya inaad caalamka ku bedesho. Nelson Mandela. xikmaddeena ku xigta waxa weeyaan waxbarashadu waxay ilaalin dalka si ka fiican ciidan habaysan. haddii dalkaagu uu yahay dal dhisan
sidoo kalena dadkiisu ay yihiin dad u dhisan aqoon ahaan, waxa ay awood u leeyihiin inay ilaaliyaan dalkooda iyagoo isticmaalaya aqoontooda. haddii laakiin weliba kasii fiican ciidan habaysan ama dhisan, taa waxaa inoogu filan tusaale cad innaga oo ah Soomaali. waddankeena Soomaaliyeed inkastoo dadkii xilligaa jiray ay ahaayeen dad waxbartay, haddana markii ay dhacday xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, qof kasta oo muwaadin ah oo hanti qaran hayay, taas oo ay hantidii ka dhacaysay bulshada, wixii uu hayay gaar ayuu isticmaalay, waxa uuna ka dhigay inay tahay wax uu isagu si gaara u leeyahay. sidaas oo kale laakiin waxaa jiray dalal kale oo iyaguna la mid lahaa oo isla sidoo kale ay ka dhacday dowladoodii, laakiin askarigii qoriga meel ku tiiriyay iskaga dhaqaaqay, kii baanka ka shaqaynayay qalinka uu meel saaray oo iskaga tegay, halka inagu kii diyaarad hayay u iibsaday, kii tareen hayay iibsaday, kii hubkii hayay isagu reerkooda ama xaafadooda u isticmaalay. sidoo kale waxbarashadu waxay ilaalin dalka si ka fiican ciidan habaysan. haddii ciidan habaysan aad haysato laakiin waxba aysan baran ama aysan ku badnayn wadaniyadu, waxa ay dhici doonta sidii markii hore oo dhacday oo kale. waxaa iskale xikmadaas nin la dhaho Edward ayaa iskale. xikmadda ku xigta waxa weeyaan, waxbarashadu waa furaha albaabka xorriyadda. Thomas. haddii aad waxbaratid ama aad tahay aqoonyahan, waxaad noqonaysaa qof xor ah oo aan cidna u ahayn adoon, qof isagu siduu rabo u fakara. laakiin haddii aadan ahayn qof waxbartay, waxaad noqonaysaa qof ku jira albaab, kaas oo weliba ugu jiro dad gaara. waxaad noqonaysaa qof raacsan xisbi ama mataqaanaa shakhsiyaad oo aan lahayn fikir iyo mabaadi' midna. sidoo kale haddii marka aad waxbarato, waxaad gelaysaa caalamka xorta. haddaba waxbarashadu waa waxa kaliya ee dunidan aan kula tartami karno. haddii aan nahay bulshada Soomaaliyeed, xikmadaheena maanta waxaan rajaynayaa inaan ku joojino xikmadahaas kooban ee ku saabsan aqoonta iyo waxbarashada. sidii markii hore aan kaaga codsanay, waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena Aqoon Dhaab, inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato, lana wadaagto saaxiibada si ay u helaan maalin kasta aqoon taxano ah oo ka baxda channelkeena oo anfici doonta. haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo, waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.